inaan ruuxna soo korarsanayo kaa hadlin ninkaasi koobni macnaha fuqsaday ee ka dhig irmaanaysa in karuurta uu horay buugmaal marka aad maqashay maxaa dhagaha ku soo dhacay buugmaal waa barnaamij ay qabteen naadiga akhriska ee qoraalka oo Jaamac Cumar Ciise oo gacanta ku haya madkabada akhriska ee magaalada Buuhool madashan buugmaal ayaa waxay maraysaa geedigii 12aad waxa barnaamijkan buugmaal ku casuuban ustaad Iida Cumar Maxamed Iida maxay inoo farqeyn doontaa yaana kaala hordhicin ila soo daawo السلام يا مدرسة قرطة بدن عنكم سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الله سبحانه وتعالى وما هذا أصبنا طيب إنهم هذا علينا الحمد لله مركز حتى حنوم هذا علينا يا نادي أخرس كقرالك أو جامع عمر عيسى أو مكتبة الجود ديجان كعنت نواي قدوميها يتيم كبسجار لكم هذا علينا يا كنت وحينوها يان برنامج قرب بدن بديجان كهيان waxay dhisayaan oo kubcinayaan maskaxdeeni iyo maskaxda jiilka soo kacay marka waan boogaadinana xaleen Allah idin barakeeyo hawsha fiican aad haysaan Ilaahay idin ka abaal mariyo marka xitaa xanum hada cilinayaa ka soo qayb galayaasha sharafta badan aqoon-yahanka gobolka ururada dhalinyarada haweenkii ardayda deegaanka dhamaantood boo ugu mahad cilinayaa waqtigooda quruxda badan ay soo siiyeen maanta waxaynu joognaa madashii buugmaal geedigii 12aad waxaynu maanta isla qaadaa dhigi doonaa ku casriyeyn doonaa abwaankii weynaa abaanduulihii halgamaagii ummadda Soomaaliyeed oo dhan dhexdiisa caan ka ahaa ee caalamka iyo meel kastaba taariikhdiisa lagu hayo abwaan Ismaaciil Mire Cilmi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala saacadii waxaynu ku jirnaa xiliska aqbali jiray waxaan Ilaahay ugu ducaynaa inuu naxariista janno ka waraabiyo oo Ilaahay jannada firdawso u bushaareeyo isaga iyo dhammaan dadkii u soo halgamay dalka aynu ku noolnahay buug kale waa buug ballaaran oo buug aynu ciyaar ku soo koobi karna maaha balse maadaama waqtigu inuu yar yahay waqtigan bilaabnay barnaamijka uu dib dhac inagu noqday waan soo koobayaa ina yar baan ku soo koobayaa insha Allah marka waan gudagali doonaa xaggan gogol dhac hadaynu eegno waxa inagu yaala su'aalo yar hor dhacan waa kuma Ismaaciil Mire xageebu ku dhashay Ismaaciil Mire goormuu dhashay goormuu geeriyooday muxuu ku sifaysnaa Ismaaciil Mire uu kaga duwanaa dhammaan abwaanadii Soomaaliyeed su'aalaha waan jeclaa inaan mikrofoonka la dhex qaado ka soo qayb galayaasha laakiin waqtigan na saacideynin oo inagu yaraaday daraadeed baan isaga soo koobaynaa oo waxa weeyaan oo inagu gudagali doonaa Ismaaciil wuxuu ku dhashay Laasadar magaalo u dhow Buuhoole hilaadii 1862 wuxuuna geeriyooday 1950 inkastoo aan si buuxda oo dhameystiran loo wada helin taariikhdii yaraantiisii iyo sidoo kale gabayadiisii abwaanku xilligii uu yaraa cid hadda si buuxda uga qortay ma jirto historygiisii iyo taariikhdiisii kaliya dhamaanteen waxaynu ka wada dheregsanahay xilligii halgankii daraawiishta uun baa si wacan loo wada haya marka wuxuu ku dhashay Laasadar 1862 wuxuuna geeriyooday xaqi u yimid 1950 ilaa naxariis jannaha ka waraayo hase yeeshee abwaanku wuxuu ahaa nin ka sheegan gayiga Soomaalidu degto wuxuu istaagay qoristiisa taariikhdiisa qorayaal Soomaali ah iyo kuwa shisheeya inta uu istaagay oo dadkii magaranaysa Faranjiga ahaa ee cadcada way isku dayeen historygiisa inay qaataan oo maanta iyagaaba inooga aqoon badan bay dhigi karnaa way hayaan intaynu inagu hayno in saddex jibaarkeed ka badan bay hayaan sidoo kalena qorayaal Soomaaliyeed oo badan baa u istaagay waxa xusid mudan oo aanu mahad celinayaa qoraagii weynaa ee Soomaaliyeed أحمد فارح علي داجا وبوكن هذا عينه هينو وايه يا قبيلة إسماعيل من كل هاين إنه قري إلهي كعبال مريو وحاجته وحسيق وحمرك أنت ما هنقمر كلماتنا وحاجة قراجة ما دام صاح هذا القاضي وحاسد مدن إنه أبوانك كلا أو بدن أو عن وبدي كسوتشي ده وحكي قري سيد أبوان كانوا وينا سمتر بحنان أيوة أذن عرب inuu ka qoray aan ku sii socday Ismaaciil Mire wuxuu caan ku ahaa saddex sifo ayuu caan ku ahaa oo uu kaga duwanaa abwaanada kale ama dadka taariikhda leh kale uu kaga duwanaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ugu deeqay saddexdaas sifo aad loogu jeclaa oo miisaan ku lahaa oo eeba ku galaday waxa ku ahaa geesinimada tusaale haddaan soo qaadano geeraar baa jira geesnimadiisa uu Ismaaciil Mire ku cadeynay oo uu lahaa Ismaaciil Mire baa shabeerdhiga gaalada laaya iyo geesi aan baqin weyn يعني نين قالada aad ugu tagan inuu la dagaalamo oo aan dagaalada ka baqin oo aan ka gabanin
oo wax walba u bacdhiga buu ahaa isaga meeriska ku cadaynaya iyadoo uu babacdhigay baa lagu yiri goobo iyo dagaalo halistooda wata laguna halayn jiray isagoo aanay aynu maqalnay inuu qaab kasta oo dagaal uu abaanduula ka waxaynu aragnaa ama la inoo sheegayaa Ismaaciil Mire dagaal kasta oo dhaca xilligii halgankii daraawiishta inuu isagu abaanduula ka hadduu goob ka maqan yahay waxaa jirta goob kale oo labaad uusan ka maqnayn uu ka qayb ka marnaba lama sheegin dagaal uu ka maqnaa iyo goob uu ka maqnaa Ismaaciil Mire wuxuu lahaa sifada labaad ee uu kaga duwanaa ama uu kaga sheeganaa abwaanadii kale waxay ahayd gabay quluud leh gabay yacni macno leh oo weyn oo wax kasta Ismaaciil Mire uu ka hadli jiray wuxuu abwaan kaliya dad iyo duunyaba la hadla noole iyo ma noolaba uu la soo hadlo oo aynu hayno sidii gabay guulaha uu kula hadlayo kale nabadii uu ka hadlay colaadii uu ka hadlay dardaaranadiisa iyo talooyinkiisa baynu haynaa inuu gabayga aan cidi kaga dambeyn jirnay ma laga daba hadli jiray waxa cadayn u ahaa awaankeenii weynaa naxariista Allah ka waraabiye cali dhuux aadan qorayo waatu isaguna meeriska uu ku lahaa bacda gabay Ismaaciil Mire buuni ku ahaay baydu akhriyay wali ma oran yaa bedela kaas yani waxay cadaynaysaa baydu Ismaaciil Mire tiriyay wali inuu san caaliq yeelanin ama uu san wax dhaliila yeelanin waxa jirta mid saddexaad oo Ismaaciil Mire uu caan ku ahaa taas waxa weeyaan waa tala fiican oo marka looga baahdo waxa weeyaan looga baran jiray ama laga heli jiray suugaanta dan dib ugu noqono dhammaan talooyinkiisa cuscuslaa ama qoyskiisa iyo qaraabada gaarka ah kula hadlo ama ummadda Soomaaliyeed ha kula hadlo ama qabiilooyinka ha kula hadleen waxay u badnaayeen talooyin wax ku oola oo dhaxal galan waxaan soo qaadanaa gabay dadka oo dhan ay ka dharagsan Soomaalidu ay ka wada dharagsantahay gabaygaas waxa weeyaan gabayga ragga kibirka waa lagu kufaay ka halooga waxaa jirta gabaygan qisa uu ku yimid baa jirta gabaygani wuxuu ka mid yahay gabayada waaweyn ee ay waaya aragnimadu ku dheehan tahay waaya aragnimada Ismaaciil Mire ay ka muuqato Soomaali badanna ay ku xasuusato wuxuu ku jira kuwa ugu horeeya gabayada lama ilaawaanka ah ee maansayahanadii Soomaalidu tiriyeen sababihii loo tiriyayna waxa weeyaan sida soo socota jabkii daraawiishta kadib nin la oran jiray Carab Cawaale jaamaco Carab dheere lagu naanayso oo isaaqo habaryoonisa ayaa xillidaada wuxuu Ingiriisku maamulo uga dhigay ceelka magaalada Laascaano baa looga dhigay marka ninkaas wuxuu ahaa nin aad u kibir badan buu ahaa naxariis daran wuxuu aad u taageerin jiray ama uu aad u cadaadin jiray dadkii ka soo haray daraawiishta marka qof kasta oo qofkana daraawiishta uu kamid ah ama waa dhashii daraawiishta uu cadaadin jiray soo ka argoosanay waxa la sheegaa marka waxa si gaar ah u culaadin jiray baa la yiri dadkii daraawiishta ka soo haray ee aan markaa lahayn tamar iyo taag ugu taagtaagsan jiray isagoo oo caabinaya maalintii dambe ayaa Ismaaciil Mire oo awrdhaana wata ceelkii Ismaaciil bay xaqiisu u yimaadeen meeshii uu maamulayay shalay oo kale wuxuu Carab dheer si foormo badan ugu geystay baa la yiri wadaad daraawiish ahaan jiray oo la oran jiray aw yamiin intuu geed ka soo lulay ayuu xalaado yani qaab foormo buu adeegsan si xun buu kala jirdil ayuu u sameeyay si yani bini'aadantinimada ka baxsan isagoo arinta xoolanimada ah Ismaaciil Mire ka murugaysan yahay oo aad uga xanaaqsan yahay arinta Carab dheer ku kacay buu waxa la yiri Ismaaciil Mire kulmeen Ismaaciil Mire marka ay arkeen wuxuu ku Ismaaciilow caaw arooskayga baa jira waxaan rabaa marka inaad gabay ka tirisid arooskayga Ismaaciil ninkana la isma tusi karam dad culab ay ahaayeen dhaqamadii maayu daraawiish ku kici jirnay isagoo ka xun marka Ismaaciil maadaama ninkan nin awood loo hayo xilligaana daraawiishta aysan awood lahayn uu ka cudur daartay wuxuu rumay reer banka imid haraadan dhaan baan waday caraaba ii diyaarsan marka ma sii joogi karayo adigu xaalay markii uu ku bushgareeyay isagoo adeegsanaya awoodiisa iyo tamartiisa marka Ismaaciil wuxuu ka sugayay gabay amaan ama ducaa uu ka sugayay aroosa laakiin waxa meeshii kaga soo baxday wax kale oo uusan filaynin baa meeshii kaga yimid kadibna gabaygan la wada yaqaanada aynu ka wada dheregsanahay ayuu Ismaaciil u bilaabay wuxuu kulligood adoomaha rabba u qaybshay kimistii qof kastoo kabtiya ama kalaha ama kurdheer fuula badka loo ku jira kay ku tahay ama se koob shaah ninba kadabkii loo qoray ilaah wuu la kulansiin inaan ruuxna soo kororsanayn ka hal ogaado
ninkaasi koobni macaha fuqsaday ee kadin irmaan haysta in karuurta uu qubo horay kaafka ugu tiile kulligiiba reer hagar anaa kiin ah baa dilay anaa kiin ah baa rogay kama suluglamaankii siduu kuray caruureeri kasxumaa hodaya naagta way kala fogaayeen ragow kibirka waa lagu kufaakaa haloogaan lixda koos ee reer caligeri ee kow iskaga siiyey kasi waaye wuxuu waa qabaal waadna kabataay ragow kibirka waa lagu kufaakaa haloogaan inkastuu gabaygu dheer yahay waan sii wadi lahaayo waxa la yiraahdaa laakiin waqtiga inagu yar ee qofkii u baahan siduu ninka ula hadlay siduu ugu jawaabay ninkaas iyo siduu ninkaas yacniga ay ugu noqotay wadida wuu arki doonaa xagga dee qabiilada loo soo qaatay qabiiladaasi waynu ku qasbanayno soo qaadno oo abwaanadii Soomaaliyeed dad akhriid buugaagtooda qabiilada way ku soo hal qabsan jireen waxa la arkaa yacni caligari markay qabaalka isku laayeen oo kale kibir un baa u geeyay buu leeyahay reer agar oo kale kibir baa u geeyay waxay sameeyaan marka maadaama gabaygu kibir ka hadlay intaas kaga gudbin xidis ayay ahayd meeshii marka abaabulka uu ka bilaabay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ururkii ugu horeeyay ee magaca daraawiish la baxa ragii wax ka ukumay uguna horeeyay Ismaaciil Mire ka ahaa maalintaas la bilaabay dhaqdhaqaaqii daraawiishta ilaa 1920 markii daraawiish udubada loo siibay kaalin weyn oo muuqata ayuu daraawiishta ku dhexlahaa ama uu kaga magacaawna wuxuuna ahaa nin sayidka uga soocan kumanaankii daraawiish ee hoggaanka u hayay wuxuu ahaa nin daraawiishnimada dhabka tahay oo ku tilmaaman taasna waxaa dhowr jeer oo kala duwan ku amaanay sayidka laftiisa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan hogaamiyihii ugu weynaayo uu ka dhaqdhaqaaqa daraawiishta Ilaahay naxariistana ka waraabiyo isaga taas waxay ahayd in daraawiishnimadii bariyahaas ay ahayd mid caan ah oo yacni la isku amaano xilliga heerba waxaa jooga wax la isku amaano xilliga qofka daraawiishta wuxuu qof ka sheegan geyga uu ku nool yahay oo aad loo amaano oo aad loo jecel yacni la heli karaa meehan marka isaguna wuxuu dadkii aadka uga sheeganaya ka cadcadaab Ismaaciil Mire taasna waxaa marxaato inaynu maanta inagu aynu qarniyada kadib aynu maanta ku faanayno inagu halgankii quruxda badnaa iyo magacii sharafta badnaa ee inooga tagay maanta jaamacad kasto aan tagno iskuul kasto aan tagno dal kasto aan tagno dadka ugu nasiibka badan waxay maanta Ismaaciil Mire taariikhdiisa ku faanabayno wuxuu Ismaaciil ugu horeeyaa safka horena kaga jira suugaanyahanada Soomaaliyeed kuwooda ugu miisaanka culus ee maansooyinkiisa dhaxalgalka ay yihiin gabayadiisuna ma dhaafaanka iyo ma dhintaanka ay yihiin waxa lagu tilmaami karaa waa joogaha maqan ee maanta isagoo inala jooga hadana inaga maqan oo dhaxal qurux badan inooga tagay Ismaaciil Mire wuxuu ka dhex sheeganaa iskuuladna ay ahaayeen rag waaweyn oo maxay toolay hadal aqoon ah ilaahayna ugu deeqay af iyo suwaan waxaana kamid ahaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan علي دوح آذن قريو سلان عربي يقمان برحن كواس وقبيضو كوسو بيغمين وايا عن أفكا صومالي قد دبت اللوغا إيمان أفف كلا إيريا كلا عن لغو لقيمين انت waxaan kaga imaanaa hordhici iyo gogordhigi buuga iyo taariikh nololeedkii hore wixii ka horeeyay bacd daraawiish ama daraawiishtu wixii ka horeeyay